هاي أصحابتي كلهم وعن ما أنتوا حدونين halka inaan ka bilowno daraamo cusub oo lagu magacaabo Life Scout. Haddaba muuqaalkan inta gudaha u gelin waxaan ka codsanayaa asxaabta inaad like dhac ku siisaan muuqaalka. haddaan nagu cusubtaan subscribe ay noo saarto haddaan nolol horno joogta aad ay u mahadsan tahay. Sheekada filimkan waxay ku bilaabanaysaa gabadhan la yiraahdo Kan Ji Yoon. waxayna madax ka tahay shirkad raadisa shaqaale xirfadlayaal ah oo raadisa kambaniyada kale. shaqadeedana aad ay ugu wacan tahay si fiican ay ugu soo baxdaa laakiin waxay ku qaldoontaa mar walba gawaarida dadka kale iyadoo u malaysa shirkadda gaarigeeda. xafiiskeedana aad ay ugu soo dhaxayacsan yahay. waxayna saaxiibteed Simi ku eedeynaysaa in ayna u keenin xoghaye ku haboon shaqadan. halka Simi ay ku andacoonayso xoghaye walba ay soo shaqaaleysiiso inuu shaqada iska casilayo sababtoo ayna tahay dabeecaddeeda in uu adkeysan karin. waqti xadarkan booskan cid soo codsatay inay jirin. markaan macmiil ayaa Kan Ji Yoon ka codsanayo inuu ku shaqaaleysiiyo injineer mobilada Yan Ho Jin la yiraahdo kaas oo shirkadda u shaqeynayo waqti xadarkan sidii ku habooneed ula dhaqmaynin. Kan Ji Yoon ayaana u geynayso dalab aad u wacan kana fiican kan shirkadda u shaqeynayo waqti xadarkan. waa ka soo fikiray ay ku leeyahay isla markii ay asigoo feelasha ka qaadan rabo ayaa waxa goobta soo gaarayo Yun Ho oo ah maamulaha qaybta shaqaaleysiinta shirkadda Yan Ho Jin oo ku shaqeynayay. isla markaasna wuxuu ku codsanayaa in gooni u wada hadlaan. Yan Ho Jin oo markaan doonin doodooda inuu dhax istaago ayaa ka marmarsi raadsanaya kadibna goobta isaga cararayo. Kan Ji Yoon ayaa isla markaas Yun Ho waxay ku eedeynaysaa inuu ka dambeeyay qorshaheeda inuu fashay balse Yun Ho ayaa kula talinayo inay tanaasusho. markaan waxaan arkaynaa iyagoo buurta iskala deganayo meel wada mugdiina ku socdaan. Kan Ji Yoon oo taleefankeeda iftiinsanaysa ayaa taleefanka bateri ka dhacayo kana damayo kadibna Yun Ho ayaa caawinayo oo nalka u iftiinayo. markay ka soo degaan buurta ayaa Kan Ji Yoon waxay Yun Ho u sheegaysaa in kulankooda khalad ahaa ayna rajeynayso dib inay u kulmeen maadaama kambaniga uu Yun Ho u xilsaaray si walba ku qaadato Yan Ho Jin kambaniga uu ka tagin. dadaal dheer oo arrinkan ku bixiyay markaan Yan Ho Jin ayuu wuxuu keenayaa xaflad shaqaalaha kambaniga ay lahaayeen kadibna wuxuu u dhiibayaa mobilkii ugu horreeyay desaanka ay soo saareen si uu xasuusiyo waqtiga dheer ay kambanigan geliyeen. inkastoo xasuus oo galay Yan Ho Jin weli ma go'aansan inuu kambaniga sii joogo. Kan Ji Yoon weli ma ayna sabrin weyna imaanaysaa waxayna halkan ka ogaanaysaa inuu u socdo markaan ciyaar ku badeed oo wiilkiisa uu leeyahay. kadibna waxay soo bandhigaysaa inay lafti siinayso ee halkan ay geynayso wayna soo wadaysaa. laakiin Yun Ho ay shaqada ugu soo horreeyay wiilka iyo kooxdiisa waxay u baahan yihiin ayuu hore ugu caawiyay si uu ugu guuleysto Kan Ji Yoon. Yan Ho Jin markaan wuxuu go'aansanayaa inuu kambaniga iska joogo halka Kan Ji Yoon ofarkeeda iska diidayo. Kan Ji Yoon ay markaa iyadoo xanaaqsan iska tagaysaa goobta. Yun Ho markaa wuxuu ka qayb galayaa xaflad ay dhigtaan shaqaalaha ayagoo u dabaaldegaya guusha ay gaareen. kadibna madaxa HR-ka ayaa imaanaya goobta soo gaarayo wuxuuna bilaabayaa inuu goobta ka sheego Yun Ho inuu waxba guul soo haynin ee guusha ay u tal tiimka. ninkan aad ayuu u neceb yahay Yun Ho. Yun Ho markaan iska dhigaya inuu waxba u arkin waxyaabaha uu sheegay ninkan ayaa bilaabaya inuu cabitaan u shubo laakiin cabitaanka uu shubo ayuu halka iska dhigaya kadibna midka ku xiga ayuu ku leeyahay inuu shub. haddaba maxaa keenay nacayb heerkan la eg inuu necbaado ninkan Yun Ho. su'aalahaas ay isweydiinayaan shaqaalihii cabaar kadib mid ka mid ah sheekada ka sheekeynaya wuxuuna sheegayaa hal sano ka hor in Yun Ho iyo ninkan ay project fiican ay heleen kaasoo haddii ay ku guuleystaan madaxa shirkadda ay ku noqon kareen. laakiin si lama filaan ayaa Yun Ho iskuulka gabadhiisa ay dhigatay laga soo wacayaa waxaana loo sheegayaa gabadhiisa dhibaato ay qabto maadaama asaga iyo xaaskiisa ay kala tageen. sawirrada farshaxankana kaliya ay sawirayso black and white lagana cabsi qaba haddii ay sidaan kusii socoteen oo autism ku dhaco. waxaa kaloo loo sheegayaa inuu hadalkeeda aad u yaraaday cidna ay la hadlin maadaama kaligiisa cunugta la nool yahay ayuu si fasax waalidnimo ay shirkadda ka codsanayaa taasoo aad ugu careysiinaysa booskiisa maadaama uu doonayay mashruuca inay ku guuleystaan kadibna la dalacsiiyo. wuxuuna ka codsanayaa fasax inuu dib u dhigto kadib markay ku guuleystaan mashruucan uu kadib fasax u qaato. laakiin Yun Ho gabadhiisa aad u walwalsan ayaa ka diidaytaa kadibna fasaxiisa ayuu qaadanayaa muddo kadib ayuuna shaqada ku soo laabanayaa isla markaasna booskiisa ayaa ku bilaabayo cadaadis dheeraad ah si uu u aarsado wuxuu ku sameeyay oona ah mashruuci dadkiis looga guuleystay. kadibna wuxuu bilaabayaa inuu u dhiibo shaqooyin loogu talagalay shaqaalaha hooseeyo macnaha shaqaalaha tababarka ku jira oona xafiiska shirka lagu qabanayo inuu geeyo biyaha iyo waxyaabahaas loo baahan yahay asaasiga ah. howlahaas dhan markuu soo qabto wuxuu doonayaa markaan inuu soo jeediyo presentation laakiin booskiisa ayaa u diidaya inuu soo jeediyo isla markaasna goobta ayuu isaga tagayaa wuxuuna ka tagayaa presentationka uu soo diyaariyey. Yun Ho markaan dulqaadka ayaa ka dhamaaday wuxuuna go'aansaday inuu iscasilo laakiin saaxiibkiisa ayaa xasuusinaya mas'uuliyadda saaran iyo qarashaadka loo baahan maadaama gabadhiisa oo xanuunsan ay joogto. isla markaasna wuxuu go'aansanaya inuu iska joogo laakiin booskiisa ayaa mid aan quusanayn asagoo xanaaqsan ayuuna shaqaalaha hortooda wuxuu u eedeynayaa in Yan Ho Jin iyo asaga kambaniga ay khiyaaneen. Yan Ho Jin kambaniga uu ka tagay asigoo hore u qaatay dokumentiyo saraha kambaniga ay ku qoran yihiin. Yun Ho isla markaas wuxuu bilaabayaa Yan Ho Jin inuu waco laakiin markuu heli waayo isla markaas wuxuu aadayaa kambaniga Kan Ji Yoon. isla markuu gaariga baakimo ayaa Kan Ji Yoon markale iyadoo gaarigeeda isku qaldaysa ay gaarigiisa soo galaysaa isla markay ogaato inay qaldoontan gaariga ayay ka baxaysaa. Yun Ho caraysan ayaa ka soo daba cararayo kadibna wuxuu sheegayaa in ay wanaagsaneen qaabka khiyaanada leh ee Yan Ho Jin kambanigeeda ugu soo wareegtay.
kambanigeena u keensatay asagoo wax hubsan ayuu ku eedeynaya ayadoo yaban ayaa isla markii message u soo dhacayo Yan Ho Jin ayaana u sheegay inuu albaarka joogo wadankan isaga dhoofi rabo isla markaasna albaarka ayuu cararaya Yoon Ho asagoo wax raali gelina siin Kang Ji Yoon Yan Ho Jin ayaan u sheegay inuu kambani kala shaqo ka helo markaan wuxuu kale la socodsiinayaa in kambaniga mar hore ay u diideen inuu isticmaali karo dokumentiyada muhiimka sanadahan dhanba inay xayirayeen ayagoo ka cabsanaya inuu kambani kale u shaqeeyo maadaama wax qiimo agtooda aan ka lahayn lacagna aan doonayo kambani kale inaan u shaqeeyo go'aansaday ku leeyahay boosaska kambaniga xaggooda waxaan ka nahnay shaqaal ayaan ka nahnay ku leeyahay Yoon Ho ayaan raali gelinayo asigoo ka warqabin arrinta uu ku dhex jiray Yan Ho Jin iyo dhibaatada uu kala kulmay kambaniga markayna isticmaalaan ay dantooda ugu gaaraan wana iskeen tuurayaan ay ku leeyahay Yoon Ho isla markaas ninka la shaqeynayo saaxiibkiisa ayaa soo wacay wuxuu u sheegayaa alaabihiisa dhab qolada baaritaanka inay qaateen laguna eedeynayo kambaniga inuu khiyaamay shaqadan sidaas ayaa looga ceerinayaa dhan kale waxaa arkaynaa Kang Ji Yoon oo xafiiska ku soo hayso saaxiibteed ayaan isla markaas isbitaal u soo qaadayso dhakhtaradda ayaan u sheegayso in maskaxda dhibaato ka gaartay maadaama stresska shaqada uu ku batay shaqada xad dhaaf ayna shaqaysay waxayna kula talinaysaa inay shaqada iska yareyso maskaxda ay dejiso si uu stresska ugu yaraado wax nafsadeeda jeceshan ay samayso kadibna waxay dooranaysaa inay buugaagta akhriso saaxiibteed Sammy halka waxay ka xaqsanaysaa in loo baahan yahay xog haye gabadha la shaqeeyo shaqada culeyskeedana ka yareeyo maalintii xigtay Kang Ji Yoon wiishka ay wax ku arkaysaa Yoon Ho ayadoo isweydiinayso wuxuu halkan ka soo doonay halka Yoon Ho markuu arkana iska qarinayo laakiin la yaab waxay ku sanaqanaysaa markay aragto inuu kambaniga u soo raaco isla xafiiskeedana uu imaaday saaxiibteed Sammy ayaana u shaqaaleysiisay ninkan inuu xog haye u noqdo gabadhan sanadkii tagay Yoon Ho gabadhiisa si wacan ayuu u garab istaagay kadibna xaaladeeda way ka soo raysay dhaqaatiirtana markaan waxay u sheegeen gabadha inay ka wanaagsan tahay sidii hore waxna uu ka walwalin ee xaaladeeda ay soo hagaagayso arrinta daradeed ayuu xaflad u samaystay Yoon Ho kadibna asxaabtiisa ayuu ku casuumay asxaabtiisana waxaa ka mid ahaa Sammy iyo ninkeeda Sammy iyo ninkeeda intay xafladda u sii socdeen ayuu dhax wuxuu ugu codsanayaa in Yoon Ho kambanigeeda shaqo u raadiso Sammyna hadalkaas way ka dhad adeegaysaa maadaama ninkan shaqada laga soo cayriyay kambanigiisa hore soo cayriyeen haddii kiiskiisa dib loo baaran arrintaas ay soo bixi doonto laakiin gurigiis markii soo gaartay ayuu arkaysaa qaabka wanaagsan oo gurigiis u hagaagsan yahay iyo sida uu xaliyay markii gabadhiisa meel wax ku daadisay halka ayana ka xaqiiqsanaysaa xukunnimada inay cid kale u habbooneen ninkan aad ayna uga heshay sida fudud oo barbalmada u xalinayo sidaas ayana shaqada ugu soo bandhigtay iyadoo saacado kooban inuu shaqeynaa u sheegtay qolkiiba 50 mushaarkiisa kor loo qaadayo Yoon Ho maadaama uu lacagta u baahan yahay isla markaas uu ka aqbalay Kang Ji Yoon arkan markii aad igu dhagay adeegaysaa maadaama ninkan xifaaltan uu hore u soo dhaxmaray in aad u doondoonaysa inay shaqaaleysiisana asiga dartiisa ugu hooyisay halka Sammy arrinta darteed ninkan ku sii amaanaysay ku leedahay waa nin hawshu gacan u qaado ku soo guuleysanayo waxayna tusinaysaa CV-giisa shaqada qof sida nam talent u lehna weliga dambe arkimaysid ay ku leedahay Kang Ji Yoon marka qaar sida isku dhaxyaado koobaha xataa ma heli karto manager email yaliin marka ayadoo xafiis ka raadinayso ayaa Yoon Ho si fudud ugu soo qabanayo ayadoo la hadlinayay xafiis ka cararaysa sidoo kale Sammy Yoon Ho ayay xibaraysaa shaqaalaha dham waxayna ku dhahaysaa xogayaha cusub waaye ee salaama si wacan ay inuu soo dhaweynayaan dhanka kale Kang Ji Yoon waxay la kulmaysaa macmiil doonaysa inay dabaqa ugu dheer magaalada dhisto waxayna ka doonaysaa naqshadeeyo mashruuc kan ugu fiican haddii arrinka ku guuleysatana waxay u ballan qaadaysaa inay tiimka kala dham iyadii soo diyaari doonto oo kambanigooda la sii doono kadibna Kang Ji Yoon waxay ballan ku qaadaysaa inay soo heli doonto arrinkan ku soo guuleysan doonto kulanka macmiilka marka uu soo dhamaado waxay la kulmaysaa naag kambani kale ka socoto oo dagaal hore ka dhaxeeya labadooda jawiga ayana ka qasaysaa iyadoo aad u xanaaqsan in xafiis ku soo laabanaysa Yoon Ho ayaana salaamayo iyadoo waxba dhihin oo xanaaqsan ay agtiisa maraysaa Sammy arrinka soo dhacay u jeeday ayaa waxay u keenaysaa Yoon Ho kadibna waxay u keenaysaa feelash dhammaan kalaaniyada loo baahan yahay waxay kale u sheegaysaa waxyaabaha loo baahan yahay inuu iska ilaaliyo si uu Kang Ji kalsoonideeda u kasbado ayuu wuxuu sameynayaa xafiiskeeda ay si wacan u hagaajinayaa maadaama uu khibrad ku leeyahay dhankaas kadibna sabuurada ayuu wuxuu wajinayaa dhammaan ballamaha ay leedahay wuxuuna rajaynayaa Kang Ji Yoon markay timaado inay ku farxayso arrinkan laakiin markay timaado faylash ay tuuraysaa goobta ay isaga tagaysaa iyadoo waxba dhihin kadibna asigoo yaabanaya Sammy u imaanaysa kadibna waxay u sheegaysaa warqadaha inuu isku dhajiyo si 45 digrii camal ah maadaama Kang Ji noocaas ay jeceshahay waxay kale u tilmaamaysaa koofiga ay gabadhan jeceshahay meesha uu ka dooni lahaa waxayna ugu digaysaa inuu kuleel naqan qabowna u naqan dhexdhexaad u marba u ahaado kadibna saf dheer oo gala kadib koofiga ayuu soo qaadaya wuuna keenayaa marka uu keeno hal mar ayay ka boonaysaa maadaama sidii rabtay inay yihiin meesha ayay isaga tuuraysaa Yoon Ho waxba u arki maayo arrinkaas kadibna wuxuu arkayaa in Kang Ji xafiiska dhexdiisa dhowr mar ay ku dhaawamayso ay madax meel ku dhufsanayso mar lugaha ay ku dhufsanayso taxadirkeedana aad uu yar yahay dhanka kale Kang Ji waxay ogaanaysaa in Yoon Ho dhammaan shaqaalaha u kasbaday maadaama printiga laabaxtay gacantiisa ugu sameeyay naqshada xafiiska dhan uu bedelay geedihii meesha yilaxtay kuwa cusub ay ku soo bedelaya sidoo kale kafayga jecleed sidii uu rabtay ayuu u keenayaa taa ay aad ugu helaysa markaan inkastoo xariiq ay xaqiiqsato markaan qof aan la yarsan karin inuu yahay laakiin weli waa is adkaynaysaa oo cadaadiska ayay ku sii wadaysaa mar ay faylal qaanada ka raadinaysay ayaa iyadoo soo istaagaysa waxay ku suganaysaa madaxa inay ku dhufsato meeshii laakiin waxay arkaysaa Yoon Ho oo gacanta u dhigaya meesha kadibna aad ay isugu dhawaanayaan wana isfiirinayaan Yoon Ho ayaana faylka siinaya kadibna wuxuu u sheegayaa inay weydiiso kadib wax ay laala waxay u baahan tahay asiga inuu u keeni doono kadibna Kang Ji Yoon ayaa u jawaabayso inayna ka doonayn inuu qanciyo maadaama xogayaha ay doonayso inuu u shaqeeyo ay waajib tahay inuu ku xushmaynayo xirfadda ay leedahay maadaama Yoon Ho hadda ka hor uu
kanji ku weeraray in ay xirfadeeda aad u hooseyso isla markaasna raaligelin ayuu ka bixinayaa wuxuu hore u sameeyay wuxuuna ka codsanayaa inay jaanis labaad siiso oo ah waajibaadka xoghayanimada inuu kasoo bixi karo in kale kanji Yoon markaa waxay go'aansanaysaa resifigiis inay dib ugu noqoto waxayna halkaa ka ogaanaysaa inuu hal sano oo gabadhiis u qaatay oo waalidnimada ah fasax ah heerka mas'uulnimadiisana inay heer sare tahay halkaa ka ogaanaysaa kadibna wada shaqayntooda sidii la rabay ay noqonaysaa oo way isfahmayaan Yoon markaa wuxuu bilaabayaa miiska hoostiisa markay dokumentiyada ku habeynayso inuu gacantiisa ugu dhigo si ay madaxa ugu dhufsan ugu dambeyn geesayo wax jilcan ugu xirxirayaa si lacag haday ugu dhufsato xataa wax dhib ay ka goysanin Yoon mar walba iskuulka wuxuu ku soo qaaday gabadhiisa iyo wiil kale asigoo caawinayo wiilka hooyadiisa oo single mother ah maadaama iyada lafteeda ay caawiso oo gabadhiisa mararka qaar ay u hayso wiilka hooyadiisna Yoon aad ay u heshay waxaan halkaan ka arkaynaa iyadoo meel ka daawanayso asigoo la ciyaaraya carruurta waxayna rajaynaysaa family dhab inay maalmaha kamid ay noqdaan halka kanji gurigeeda soo gaaraysa arkayno nolosheeda daafirna waa nolol kelinimo ah oo aad u liidata stress far badan oo ka muuqdo xataa nalka ma ay shida karto Semi ayaan message u soo dirayso kadibna xasuus ay galaysaa aabaheed oo macsalaameynaayo kadibna galay guri dab ku socdo si uu u badbaadiyo dad kale oo meesha ku jiro waxaan halkaan ka ogaanaynaa dabkaas inuu ku dhinto aabaheed waxaan arkaynaa markaan kanji wadada iska maraysa kadibna Fiyor ayaa gacanta ku soo dhacayo waxayna halkaa ka soo xasuusanaysaa aabaheed waqtigooda dhintay in la joogo Semi Yoon waxay ka codsanaysaa inuu kanji maanta cunto soo siiyo maadaama ay taqaano maalinta camal inay waxba cunin kadibna maqaxay ayuu geynayaa isla goobtaas waxay ku diinaysaa sababtoo hal sano u qaatay oo fasax ah wuxuu sheegayaa kaliya in ay ahayd balan uu ka qaaday gabadhiisa inuu dalkiisa ayaana soo xasuusinayo ballamihii aabaheed uu ka qaadi jiray oo oofin maadaama uu ka dhintay ballan inta uu ka qaaday isla markaasna iyadoo waxba cunay maqaadi ka cararaysaa xafiiska ayna toos u imaanaysaa Yoon soo daba raacaya kadibna cunto iyo biyo ayuu u keenayaa iyo daawadeeda isla markaasna biyo ayay meesha ku daadinaysaa isla markaasna intay xanaaqday waxay ku leedahay ma doonayo xoghayo nolosheeda khaaska soo dhex galo waxaan doonayaa mid amarkayga qaato shaqadiisana ku ekaado markaan agtay falta ka dhaxeeyay waxay isku dayaysaa in macaamiisheeda mid kamid ay ka xaddo halka kanji iyadoo xanaaqsan ay meesha u maanayso kadibna naagta ayaa ku eedeynaysa dareemaheeda inay control karin sida aawadeedana hadda kor qof ay u dhimatay dareemaheeda inay control darteed kadibna xasuus ay galaysaa khiyaanadii la khiyaanay iyo eedii dhimashada dusha laga saaray iyada xasuus aad u xun ayay galaysaa isla markii iyadoo dhici rabto ayay waxay gacanta u taaganaysaa Yoon oo u soo cararaya xaggeeda kadibna intayna dhicin ayuu qabanayaa kanji qisa xanuun badan ayaa hore ugu dhacday kadib markay ogaatay kamariga u shaqaynaysa maalgashatayaalkiisa inay kambaniga ku kalifeen inuu shaqaalaha khiyaano halka naagta iyada ka sarreysay ay go'aansatay inay sheekadan daboosho laakiin kanji ayaa waxay go'aansanaysaa runta inay banaanka soo dhigto runta inay banaanka soo dhigaysaa taasoo sababayso ninkii kambaniga kor ka haystay inuu dhinto is dilo dhimashadaas ninkaas uu is dilana ayada inay sababteeda leedahay ayaa dusha loo saarayaa kambaniga sidaas ayaa loogu soo ceyrinayaa iyadoo dhibaatadaas dham u maraysa run ay sheegtay darteed Yoon markaa wuxuu go'aansanayaa inuu isbitaal u wado kanji laakiin way ka diidaysaa oo waxay leedahay bedelkeed street food ayaan soo cunaynaa kadibna waxay dalbanaysaa raashin aad basbaaska ugu badan yahay halka Yoon uu sheegayo inuu basbaaska aad u jeclayn laakiin waxay ka dhadhacsiinaysaa inuu isku dayo inuu cuno isla markuu afka gashtay ayuu kuleelka basbaaska u adkaysa weeyaa kadibna wuu ka cararayaa meesha si uu biyo isaga qaboojiyo u cabo taasoo kanji markaan ka qoslinayso murugtina sidaa yara ay ku halmaamayso gurigeed markay timaadeen waxay arkaysaa in borsadeeda uu ku jiro nanac iyo macmacaano kale waxayna soo xasuusanaysaa inuu Yoon u gelinayo meesha uguna talagalay inay jawi degan ku qaadato isla markaa afka gashtana waxay soo xasuusanaysaa markuu habsiinayo oo qabanayay maalintii xigta waxaan arkaynaa kanji oo shaqaalihii ku amrayso inay mashruuc aad u adag isla maalinkaas ay ku soo dhameeyaan Yoon waxaan halkaa wuxuu ka dareemayaa inay shaqaalaha aad ugu faraxsaneen hawshan adag ee loo dirayo isla markaasna wuxuu go'aansanayaa inuu shaqada u dejiyo kadibna betso ayuu u keenayaa si uu qalbigeeda u dejiyo una dhiirigeliyo shaqaalihina aad ay ugu farxayaan Yoon wuxuu sameeynayo halka ay aad u dhaliilanayaan kanji mid kamid ayaan istaagaya si uu u jiro habdhaqankeeda aad ku la qalafsan ayaga laakiin wuxuu ka warhayn inay gaashiis taagan tahay fiirinayso wax meesha ka dhacay dham taasoo shaqaalihii markay wada arkeen sheekada ka qasayso isla markaas Semi ayaa goobta soo gaarayso si xaaladda u dejiso sheekadana u bedelaysaa kadibna kanji xafiiskeeda ay isaga laabanaysaa halka Semi xafiiska intay ugu timaaday u amaanaysa Yoon qaabka wanaagsan oo la dhaqmayo shaqaalaha iyo sida uu dhiirigelinayo halka kanji iyada lafteeda ay ka muuqato inay ka heshay arrinka wanaagsan uu sameeyo kanji markaan waxay diyaarinaysaa mashruuca maqaayad chef lagu raadinayo maqaaxidan chefka ay doonayaan waxaan la lahaa Han Jun waana chef heer sare ah cuntadiisana aad loo jecel yahay wuxuuna hore ugu soo shaqeeyay maqaayada aad caan u ah wuxuuna sidoo kale ka soo muuqday TV-ga asigoo sameynaya barnaamij cunto karin ah si walba ahaatee kanji dalabka ay hor dhigtay ayuu aad ugu helayaa laakiin hal shuruud ayuu ku xirayaa inuu aqbalo shuruudana waa in gacan yaridiisa gabadha ah ay isla shaqeeyaan oo aan kaligiis shaqada loo qaadanin kadibna kanji shaqo ay galay kadibna waxay bilaabaysaa baritaan ku saabsan labadan wixii dhex yaalo kadibna waxay wareysanaysaa shaqaalaha waxayna u sheeganayaan labadooda inay isjeclaayeen oo xiriir hoosaad uu ka dhaxeeyay waxayna sabab u dhigayaan sababtii gabadh shaqada ku soo gashay alaab dhaqid ay si degdeg u noqotay inay caawiso cunto kariyaha u sareeyay maqaayad kanji markaan ra'yi aruun ay sameynaysaa shaqaalaha qayb kamid waxay leeyihiin waa iska caadi haddii ay single yihiin inay saaxiibo noqdaan halka kuwa kale ay leeyihiin ma wanaagsan laba qof oo shaqaysta inay xiriir noocaas u ka dhaxeeyo
kan Jiyun ayaa go'aan gaaraysa inay kaliya shaqaaleysiiso Han Jong-won isla markaas Yoon Ho arinta ka aamusnaa ayaa soo hadlayo kadibna wuxuu leeyahay shaqaale waxay dhaheen in lagu raaco maahan ee labadooda waa in la weydiiyaa sababta ay xiriirka u dhaxeeyo iyo wax laga sheegay inay run yihiin inay ban yihiin kan Jiyun ra'yigiisa ay qaadanaysa kadibna way weydiinaysaa wuxuuna u beeninayaa in wax xiriir ay ka dhaxeeyaan labadooda kadib kan Jiyun waxay ogaanaysaa inuu Han Jong-won gacanta wax ka gaareen maadaama uu boobka uu hayo inuu si fiican u celi karin baaritaanka ay dib u noqonaysaa kadibna waxay ogaanaysaa 2 sano inuu saaxadda cunto karinta ka maqnaa kadibna waxay ogaanaysaa inuu qalliin galay maadaama gacanta ay wax ka gaareen markii soo laabtan uu ku adkaystay in gabadhan la shaqaysay maadaama ay muddo ay caawinaysay halkan waxay ka garatay gabadhan inay isku talent yihiin ee sanadahan dambe cuntada loo bagay ee gabadha ay karinaysay ayadoo u ceeb qaranaysan xirfadeeda heer sare ay noqotay markan waxa arkaynaa Yoon Ho oo Kan Jiyun dhaawac soo gaar ka daaweynayo Kan Jiyun markan waxay ogtahay inuu dareen ninkan u galayo cabaar kadib Yoon Ho ayaa Kan Jiyun gurigeeda keenayo kadibna wuxuu arkay inay gaariga ku dhex hurdayso markaas ayuu bilaabay gaariga inuu soo wareejiyo ilaa ay ka soo kacdo maadaama uusan doonin inuu hurdada ka qaso markay soo kacdo waxay leedahay ma doonayo inaan naqdo sida cunto kariyaha gabadha uu tirsan yahay camal in adiga ugu tirsanaado ayadoo ka baqaysa xirfadeeda shaqo inay dhibaato ka soo gaarto waxaan halkan ka ogaanaynaa Ryu Hai maadaama cunto kariyaha ay caawinaysay arrinkaas inay sababtay inay xiriir yeelan weyso xanta ugu timid arrinta darteed saameyn nololeedna ay ku yeelatay laakiin waxa la yaab ku sii noqonayso cunto kariyaha in maqaayada kaligiis ay ogolaatay inay shaqo siiso inkastoo runta ay meesha ka jirtay ay ogaatay ayagoo qiimeynaya caannimadiisa laakiin aan u fiirinayn cunto karintiisa siday tahay oo markaan xirfadda ay waxay ka doorteen caannimada Ryu arrinkan way qaada weysay maadaama ay aaminsan tahay ninka la'aantiis inay waxba ahayn waxaana sababay kalsooni darro ayaa nafsadeeda haysato isla markaasna waxay bilaabaysaa Kan Jiyun inay dudush ka saarto laakiin Yoon Ho ayaa xaalad u dejinaya kadibna wuxuu u sheegayaa in nafsadooda ku kalsoonaato ninkaasna ay u baahneen ay kaliya talent ay leedahay kaligeedna isku filan tahay kadibna way isdejinaysaa Kan Jiyun inay ka codsanaysaa inay shaqo fiican u soo raadiso Kan Jiyun way ka aqbalaysaa isla markaasna shaqo fiican ay u keenaysaa oo booskeeda ku habboon Yoon Ho arrinkan ay sameysay Kan Jiyun markuu arkana fikraddii xumaa ay ku aaminsanaa ayaa halka iska bedelayso sidoo kale wuxuu halka ka fahmayaa shaqada uu hayo inay shaqo aad u wanaagsan ay ku tahay uuna ka helayaa maadaama dad kale uu caawinayo inuu shaqo u soo helo marka waxaan arkaynaa inuu bilaabanayo barafka de'itaankiisa isla markaas Yoon Ho ayaa dalad la soo baxayo kadibna Kan Jiyun ayuu u aadinayaa iyadoo aad ugu helayso arrinkan iyo sida ninkan wax walba diyaar u yahay maalintaas Kan Jiyun waxa loo soo diyaarinayaa shir urureed oo la doonayo inay ka soo qayb gasho laakiin iyada ma doonin inay ka qayb gasho laakiin markay aragto in lagu magacaabay kamanigii hore ay ka shaqay jirtay ninka madaxda ka ahaa go'aankeeda ay bedelaysaa isla galabtaas waraysi ay leeyahay Kan Jiyun ay ka qaadayeen qolada magasiinka laakiin iyada kaliya goobta ma imaaneen oo naagta ka soo horjeedo ay xifaaltami jireen ayaa imaanaysa idana isla markaasna waxay bilaabaysaa inay daansato Kan Jiyun halka Kan Jiyun markaan ay iska celinayso Kan Jiyun markaan qolada magasiinka ay waxay u digaysaa magaca booskeeda hore in loo xayeelayo iyadoo si qaldan loo isticmaalayo isla markaas ayaa naagta waxay ku dhahaysaa Kan Jiyun adiga ee ninkan dhimashadiisa ka dambeysay marka hadda miyaad qof fiican iska kan dhigaysaa oo iska dhigaysaa qof magaciisa difaacayo Kan Jiyun markaa naagta ka soo horjeeda hadaladeeda iyo madax wareer ka soo qaaday Yoon Ho ayaa markaa soo bandhigaya inay aadaan meeshii cuntada kulaalka ay ka soconayeen basbaaska badneed laakiin Kan Jiyun ayaa ka diidayso kadibna wuxuu leeyahay waan soconaynaa oo soo baashaalayna kadibna waxay galayaan inay isboorti ciyaaraan oo kubadda kulaga ay isla baashaalayaan ciyaartaas ayaa yara ka qaadaysa culayska hay Kan Jiyun Semi dhacday markay ogaato waxay u imaanaysaa Yoon Ho kadibna waxay ugu sheekaynaysaa dhibaatooyinka ay soo martay Kan Jiyun ee murugada badnaa Yoon Ho arrinkan markuu maqlo aad ay ugu xumaanayaa wuxuuna halkan ka ogaanayaa naag adag oo iyada camal ah hataa in la khiyaani karo kadibna wax lagu eeday karo inay samaynin isla markaas arrinta lamid ayaa waxay ka dhacaysaa kambaniga dhexdiisa kadib markii gabar shaqaalaha kamid ah iyo nin shaqaalaha kamid ah oo iyada ka sarreeyay isku dhacaan macmiil dartiisna isugu dhacaan maadaama macmiilka gabadhan hadda ay la heshiisay laakiin hore macmiilka waxa barnaamijkiisa ugu jiray ninka iyada ka sarreeyay laakiin iyada oo ka warqabin ay dhaxda ka soo gashay taasoo aad ugu xanaajisay ninka ka sarreeyay ayagoo iska warqabinaya qof geeskeeda shaqo ka wadatay taasoo arrinta qastay maadaama macmiilka asiga shaqo kale uu bandhigay iyadana shaqo kale ay soo bandhigtay Kan Jiyun dabeecaddeeda cidna uma kala qaado oo ayaga ay dhaxdhigaysa kadibna waxay leedahay boos ku fiican waa inay ku aadisaan aad ayayna u canaanaysaa labadoodaba isla markii Kan Jiyun baxdana gabadhii shaqaalaheed iyadoo ooyinaysa ay meesha ka soo tagaysaa ninkana wuu yara ka xumaanaya arrinkan shaqadan waxay ugu sii diraysaa markii shaqaalaha kale ay dhahan gabadhan uu sabar arrintan ayagoo waraysan dhankiisa qof walbana uu ogaa gabadhan in mashruuca gacanta ku haysay haddii laga reebo asiga laakiin hadda asiga shaqaalaha dhan waxay ka dhigayaan nin xun asigana arrinka sidii u socoto ma ka warqabinba laakiin Yoon Ho ayaa kor u soo raacayo kadibna cabitaan u keenayo shaqada dhankiisa ayuu ka dhageysanayaa sida wax u jiraan kadibna niyad ayuu u dejinayaa ninkii seniorka ahna wuxuu leeyahay gabadhan macmiilka shaqada ay u soo bandhigtay ayaa aad u wanaagsan mid u soo bandhigay haddii aan ogaalahay inay arrintan ku jirtona ma sameelin arrintan sidaas ayuu ugu tanaasulayaa gabadha inay hawsha qaadato Yoon Ho dhanka kale gabadha xageeda ayuu imaanayaa asigoo koof u keenayo iskuna dayaya inuu raaligeliyo labadoodaba oo una heshiisiyo inkastoo shaqada looga safray gabadha laakiin waxa laga dareemayaa weli inay isku xanaaqsan yihiin kadibna shaqaalaha ayaa waxay go'aansanayaan in xaflad oo Yoon Ho lagu soo dhaweynayo lagu sameeyo si labadan si hoos loogu heshiisiyo Kan Jiyun marka arrintan la soo bandhigo way ogolaanaysaa laakiin waxay leedahay kama soo qayb gali karo arrinta kale ayaa ii taalo waxaan la kulmaysaa maalgashada kambaniga ah ninkan gabadha garabkeeda ayuu tagnaa ilaa jaamacadda ay dhiganaysay waa nin hantiila laakiin wiilkiisa u dhalay ayaa
wuxuu doonayaa gabadhan inay dhanka ganacsiga ka caawiso ay tababar fiican siiso kamariga ayuu ku soo dayaa isagoo marmarsi u dhigay inuu wakiil ugu yahay haddaba Yu Jun Ho wuxuu dareemayaa Kang Ji Yoon xaaladeeda inay wanaagsaneen si uu xaaladeeda u bedelo ayuu wajiga u soo dhaweynayaa wuxuuna ku leeyahay wajiga fiirmaanan weyn Soomaan weynan asigoo kaftan ka wado laakiin Kang Ji Yoon waxba dhihin ayaa ka tagayso dhanka kale xafladii waxa arkeenaa kadib markii shaqaalihii labadooda dhexdhexaadiyeen inay heshiiyeen ay wada cabayaan iyagoo farxasan Yu Jun Ho dhexdhexaadintiisa inuu ku guuleystay arkay kadibna wuxuu wacayaa gabadhii saaxiibtiisa ahayd ee cunuga u haysay si uu cunugtiisa xaaladeeda u warsado iyo jawgooda sidoo yahay isla markaa taleefanka wuxuu arkay ambalaasta gaariga dabdamiska taasoo xasuus yarantiisa oo aad u xun gelinayso story ayna ku dhigayso ilaa ay Kang Ji Yoon ka taabato codkeedana oo gadaal ka maqlo isla markaas ayagoo isfiirinaya shaqaalihii soo baxay oo arkayaan isla markaasna Kang Ji Yoon ay wadayaan cabitaan ay siinayaan maadaama cabitaanka uu ka bato markaan Yu Jun Ho ayaa ka soo garay kadibna ka qabanaya cabitaanka waxaan halka ka arkaynaa Yu Jun Ho taxdirka gabadhan ka taxdiraya meel walba aad inuu ku ahayo kadibna banaanka ayuu soo wadaya si uu gaari u soo raasho gurigeeda u geeyo laakiin waxa ka bacdi uu weeyana meel ay jaan yarib dhigtay laakiin markuu saaxiibteed weydiiyo waxba kama walwalsano oo waxay ku leedahay mar allaala markaa weyso meel kale ma jirto ee goobtii shaqada ay jirto xafiiska ay aadaysa ay leedahay halkaas laga weymaayo Yu Jun Ho asagoo ka walwalsano ayuu xafiiska imaanaya kadibna wuxuu arkayaa Kang Ji Yoon oo meesha jiifto wuxuuna go'aansanayaa goobtan kaligeed ugu tagin waqtiga ayuu fadhiisanaya kadibna hurda ayuu laacay laftiisa wuxuuna ka soo kacaya iyadoo farteeda bishimihiisa taabanayso kadibna way shuminaysaa kadibna garabkiisa ay si tartiib ugu hurdaysa subaxdii markay ka soo kacdo waxay xasuusanaysaa habeenkii wixii dhacay isla markaasna waxay isleedahay waa riyo inkastoo Yu Jun Ho uu sheegayo habeenkii inayna kulmin haddana riyada aad ay ugu heshay Kang Ji Yoon oo sawirkiisa ay xatay warqad ku sawiraysaa si ay xaaladan isku muujiso Kang Ji Yoon markaa waxay aadaysaa buugaagta meesha laga akhrinayo library-ga buug akhris ayayna gelaysaa si lama fahmaan ayaan halkaas kula kulmayaan Yu Jun Ho gabadhiisa saaxiib ayayna halka ku naqanayaan maalintii xigtay Kang Ji Yoon dalab ayaa ugu imaanaya company si online ah u iibiyo alaabaha farshaxanka ee qaaliga ah waxayna ka doonayaan inay u soo raadiso qof xirfadle ah oo ku shaqeysta kala saaridda alaabta originalka iyo fake Kang Ji Yoon baaritaan dheer kadib waxay ogaanaysaa saddex qof oo ku habboon shaqada midka koowaad waa mid xirfadiisa sarreysa oo customka u shaqeeyay macnaha qolada cashuurta midka kale waa mid TV caanka ah qofka saddexaad waa naag 20 sano ku soo jirtay kala iibinta alaabahan xirfadeedana heer sare ah laakiin si walba ay noqoto intayna shaqaaleysiin ayaa naagtii la xifaltami jirtay ayaa la wareegayso shaqaalihii horta Kang Ji Yoon aad ay ugu xanaaqaysaa arrinka dhacay kadibna shaqaalaheeda ay aad ugu qaylinaysaa waxayna ku amaraysaa inay si degdeg ah xirfadlayaal ka sii fiican kuwan ay soo raadiyaan markaan dadaal walba sameeyaan way ku guuleysanayaan inay soo helaan xirfadle ka fiican kuwaas laakiin Yu Jun Ho iyo mid kale oo shaqaalaha lamid ah oo maqaaxi ka cunteynaya ayaa Yu Jun Ho wuxuu ku leeyahay qofka raadinayna waa qof makaanig xirfadle camal ah mar qof noocaas hadii aan hataa waa ka maarmi karnaa ayuu ku leeyahay kadibna raadin dheer ay galaan kadib waxay helayaan naag 30 sano ka shaqeynaysa farshaxanka iyo tolida alaabaha noocaas ah laakiin si walba noqoto dalabka aad u wacan ay u geeyaan naagtan inkastoo aqoonteeda ay gaarsiisantahay dugsiga hoose kaliya haddana way ka diidaysaa dhanka kale Yu Jun Ho gabadhiisa ayaa waxay u sheegaysaa jamacada iskuulka in laga rabo ardayda dhammaan inay iskuulka joogaan ay halkaas ku hoydaan meeshaas ayuu fursad ka arkaya kadibna xaflad ayuu wuxuu ku casuumayaa shaqaalaha dhammaan gurigiisa si uu isdhexgal ugu sameeyo laakiin Kang Ji Yoon ka soo horjeesanaysa uma iimaan ay ku leedahay maxaa yeelay maalmo ka hor waxay kursiga hoostiisa ka aragtay stickerka Yu Jun Ho taleefka uu dhaganaa halkaasna waxay ka xaqaysatay habeenkii shuminta ee uu maleynayay inay ku riyoonayso inay dhab ahayd habeenkaas uu la joogay kadibna Yu Jun Ho ay qabanaysaa kadibna waxay ku leedahay habeenkaas wixii dhacay wax dhab ay ahaayeen Soomahan laakiin maxaa uu dhigtay wax riyaa oo wax jira in ay ahayn oo iga qarisay Yu Jun Ho markaan wuxuu ku jawaaban karanayo oo hadalkii ayaa ku dhagay laakiin waxay ku leedahay si walba ahaataba waana iska hilmaanaa arrintaas inay dhacday oo nolosheena hor u wadanaa madaxdayga ku jira dartiisa invitationka oo loo sameeyay ugu diidaysaa inay Yu Jun Ho gurigiisa ay tagto laakiin fikir dheer kadib waxay go'aansanaysaa inay aado raashin ayana soo qaadaysaa si gurigiisa u geyso oo hadiyahan ah laakiin guriga markay timaado waxay la yaab ku noqonaysaa maadaama ay cidna joogin ayay isdhaysa teamka guriga ay joogaan markay ay weydiisan wuxuu ku leeyahay maadaama ay cidna imaan waa iska kansalay arrintii macnaha xafladii isla markaasna way cararaysaa intuu ka daba tago ayuu wuxuu ka dhadhacsiinaya inay guriga iska joogto maadaama ay hadda soo lug go'day Kang Ji Yoon markaa waxaa moodaa inay aad ugu helaysa ninkan waxayna aad ugu helaysaa cuntada u kariyay marka Yu Jun Ho gabadhiisa asigoo telefoon kula hadlayo Kang Ji Yoon wuxuu u imaanaya meesha ku hurdayso maadaama dadka badanaa raashin ay ka helaan markay cunaan ay hurdada lacaan wuxuuna halkaa ka dareemayaa inay yara qarwayso soona xasuusanaysa dhibaatooyinkii soo martay yaranteedii kadibna gacanta ayuu ka qabanayaa asigoo ka taxadarayo xaaladeeda maalintii xigta markay ka soo kacdo waxay ogaanaysaa guriga Yu Jun Ho inay xal jiifatay kadibna intay naxda iyo bood isleedahay gacantiisa inay ku istaagaysaa maadaama hoosteeda uu jiifay isla markaas Yu Jun Ho gabadhiisa ayaa taleefka soo galisay inuu sheegay inay waqti xaadirkan joogto isu socoto isla markaas labadooda guriga ay ka soo cararayaan si cunugta ugu imaan guriga wiishka ayana soo raacayaan laakiin si lama filaan ayaa markii wiish ka baxay isdhaayeen ayay waxay ku arkayaan cunugtii iyo gabadhii asiga jecleed oo cunug wiilka kala dhashay oo cunugta waday si uu hortago gabadhiisa inay ogaato Kang Ji Yoon inay gurigooda seexatay habeenkii ayuu si tartiib banaanka ugu bixinayaa Kang Ji Yoon markaan waxay la yaabantaa gabadhii yareed ee dukaanka buugaagta ay isku soo barteen inay tahay Yu Jun Ho gabadhiisa isla markaas Kang Ji Yoon saaxiibteed ayaa casho ku casuumaysa si arrimaha Yu Jun Ho wax u weydiiso waxayna weydiinaysaa Yu Jun Ho iyo naagtiisa hore sababahay u kala tageen saaxiibteed Sami ayaan u sheegaysa Yu Jun Ho iyo naagtiisa hore inay iskuul wada ahaayeen kadibna isla markii jaamacadda ka qalin jabiyeen ay isguursadeen sanadka bacdina ay kala tageen
laakiin waxa la yaab la naqanaysa sababta Kan Ji Yoon ay qof kale arrimaheeda u weydiinayso waxayna leedahay weligiin kuma arkin qof saan ay weydiinaysa maxaa dhacay halka Kan Ji Yoon ay ku jawaabayso kaliya in qof shaqaalaha kamid ah ay doonayso inay arrimihiisa khaasan ay ogaato kaliya wax kale oo zaid in jirin waxa kale oo raacsiinaysa Yoon Ho inuu hal sanad gabadhiisa darteed u qaatay iyadoo xanuunsan dhanka kale Yoon Ho gabadhiisa ayaa waxay u sheegaysaa gabadha wiishka la saarnid inay ahayd qofka ay dukaanka buug kala kulantay ee saaxiib kala naqatay qof fiican ay tahay waxayna ka rajaynaysaa kulankooda labaad inuu si fiican isku bari doono maalintii xigtay maamulaha kambaniga farshaxanka ayaa arkayna inuu ku qanacsaneen xirfadlaha Kan Ji Yoon ay kula talisay inuu qaato halka Kan Ji Yoon ay ku kalsoon tahay Mr. Joe xirfadeedana ay la dhacday isla markaas ayaa maamulaha xogeeyadiisa u imaanaysaa waxayna u sheegaysaa in qoraal ka soo horjeeda kambanigooda laga qoray laguna sheegay inay boorsooyin fega iibiyaan dadkan ay khiyaanaan shakadan waxa ka dambeysay Kan Ji Yoon gabadha ay xifaaltamayeen Kan Ji Yoon Mr. Joe ay keenaysaa si uu kala cadayso alaabaha inay feg yihiin inay original yihiin Mr. Joe baaritaankeeda ay sameynaysaa kadibna waxay cadeynaysaa alaabta inay original tahay laakiin si walba noqoto maamulaha kuma qancayo hadalkeeda oo kalsooni kuma qabiyo isla markaa Kan Ji Yoon asiga ayaa muran dhaxmarayo markaas ayaa xogeeyadiisa tala soo jeedinaysa oo ah in warshada loo diro si ay u soo hubiso inta natiijada warshada ay sugayeen ayaa marka labaad article kale laga qorayaa taasoo dadka ku sii kicinayso kambaniga waxaana ku soo biiray dad caan ah kuwaasoo reaction ka bixiyay alaabaha noocan oo kale waxa kale oo kambaniga lagu eedeynaya inay shaqaaleysiiyeen harqaanle ah wax saas khibrad lahayn ayagoo u jeedo Mrs. Joy isla markaas Yoon Ho iyo Kan Ji Yoon ayaa israacayo waxayna aadeen dukaankeedii yar Mrs. Joy ayagoo kala walasan arrinta social media ka kacdayna wax saameyn ku yeelato kadibna dukaanka ay wax kula kulmayaan gabadheeda oo maalmo ka hor kula talisay hooyadeed inay shaqada ka fadhiisato kadib markii aragtay dhibaatooyinka ka socda social media iyada lagu erarayo iyo kommentiyada qalafsan oo loo geysanayo Mrs. Joy talada gabadheeda ay qaadatay shaqada ay sida ugu fadhiisatay laakiin Yoon Ho ayaa ku dhahay hooyada waxay u sheegtay inay shaqadeeda aad ugu raaxaysato laakiin maana haboonin inay ka fadhiisato shaqada lacag darteedna shaqada uma sameey jirin oo sharafteeda ay eeday ku leeyahay Yoon Ho hadalkiisa markay maqashay gabadheeda isla markaas waxay go'aansanaysaa hooyadeed inay garabkeeda istaagto maalmo kadib warbixinta ayaa soo laabanaysa kadibna alaabtii original way ay leeyahay oo Mrs. Joe hadalkeeda ay u saxnaa isla markaasna managerka aad ay ugu farxayaan Mrs. Joe oo mahad celinaya waxaana ka codsanayaa inay kambanigiisa la shaqeyso Mrs. Joe iyo arrinka aad ugu faraxsan ayay Kan Ji Yoon waxay u siinaysaa boorso yar hadii ahada inay gacanteeda ku sameysay Yoon Ho tigid ay siinaysaa gabadheeda show ay qabanayso oo ka soo qaybgalayo gabadheedana ay ku casuumtay dhanka kale naagtii wararka beenta faafisay ayaa waxay raalgelin ugu bixinaysaa maalgashtaha qorshe kale ayay u soo bandhigaysaa oo Kan Ji Yoon lagu khiyaanayo dabina loogu dhigayo maalintii xigtay Semi waxay arkaysaa Kan Ji Yoon si fiican u soo leebasatay markaan maadaama Yoon Ho meesha laga casuumay oo asna ku casuumay inay raacdo xafiiska markay soo gashaan waxa loo sheegay Yoon Ho inuu maanta shaqo ku maqnaan doono waxaan u malaysaa wixii uu noloshada ugu qaalisnaa inay ka maqan yihiin isla markaas message ay u maanay uu soo diray Yoon Ho waxaan u sheegay waqtigii uu ku imaan doono okay ayna ku leedahay xamaasadda haysa inay meesha isku wada raacaan ay wax yar ka bacdi waqti u fiirinaysaa isla markii waqti la gaarana xafiiska ay ka cararaysaa ayadoo laba koob kafeey hore u sii gadanayso albaabka laga galo concertiga ayna ku sugaysaa intayna gelin masraxa ka hor ay gadaal u soo fiirinaysaa kadibna Kan Ji Yoon si fiican u soo libistay waa kana soo socdo Yoon Ho Kan Ji Yoon ayuu arkaya kadibna xageeda ayuu soo aadaya Kan Ji Yoon intuu dhankeeda u soo socday waxay dareemaysaa in dareen jacayl ay u haysan ninkan aadna ay uga heshay style-kiisa iyo dhaqankiisaba waxaan halkan ka ogaanay Kan Ji Yoon inay dhanka Yoon Ho u badanayso maadaama arkeen iyada ku suganayso inay gacanta ka qabsato showgii markuu dhamaado suulida ay soo galaysaa kadibna biyo qabow iyo gacmaha ku dhaqanaysa si ay dareenkeeda u kontroosho kadibna way soo raacayaan xaafadooda ayna soo aadayaan waxaan u malaysaa markaan inay gacmaha isqabsan rabaan gacmahooda sidii isku dhow yihiin habeenkaas wixii ka dambeeyay Kan Ji Yoon isbedel weyn ayaa ku dhacayo waxaan arkaynaa iyada wax yar ka bacdi xagiisa eegayso welina wiishka u celinaysa ilaa uu ka imaado taasoo saaxiibteed ka yaabinayso ilaa ay ka mashquusho shirka ay ku jirto kadibna iyadoo Yoon Ho dhankiisa eegaysa is aragto Kan Ji Yoon markaan waxay dareemaysaa arrinta inay zaid tahay kadibna intay u adkaysi weysa ay saaxiibteed qolkeeda inta u tagtay waxay leedahay waa inay raadisaa xog hooyo dumar ah saaxiibteed Semi arrinta hadday maqashan waxay u marinaysaa Yoon Ho in wax qalad sameeyay kadibna intay wacdo ay su'aalo ka weydiinaysaa arrinta dhacday habeenkii Yoon Ho markuu Kan Ji Yoon xaafadeeda geynay ayuu wuxuu go'aansanayaa inuu weydiiyo si wax u dhaceen iyo wax qaldanba meesha arrin kale ka filinay waxay u sheegaysaa inay ka heshay dhibaatada dhankeeda ay ka waxayna u sheegaysaa ka helidda ka heshay inay shaqadeeda u guddiiday sidii la rabay kadibna way ka tagaysaa asigoo aad ugu xumaanaya ilaa haddan inuu u sheegin dhankiisa dareenkiisa subaxdii xigta waxaa arkayna Kan Ji Yoon inay markaa bilaabayso inay ka fogaatay Yoon Ho dhankiisa wuxuuna dareemayaa inay iska ilaalinayso labadooda kaliya inay kulmaan cunooyinkii iyo waxyaabaha u keenan xataa ma cunayso oo waxay iska ilaalinaysaa wax walba dhankiisa ka socda xataa waxay ka hor imaanaysaa shaqada markay dhamayso kadib guriga uu wadi jiray maalmo markii arrintan socotay ayay Kan Ji Yoon waxay qalbigeeda soo jilcayaa waxayna dareemaysaa sheekada ka dareen inay ka dhigtay markaan waxa arkaynaa iyadoo soo raacayso gaari ku soo wadaayo kadibna gaariga uu sugo ayay leedahay wayna ku mahad celinaysaa waxyaabaha uu soo diyaariyay shirka markay soo dhamaysatan waxay u imaanaysaa Yoon Ho oo jeefo kadibna waxay arkaysaa inay oraxda hayso waxayna isku dayaysaa markaan oraxda inay u aadanto habeenkii waxa arkaynaa Yoon Ho oo saaxiibkiisa u tagayo kadibna uu sheegay inuu qof jecel yahay laakiin ilaa haatan uu sheegin dareenkiisa jacaylka maadaama uu doonayo qofkaas nolosheeda inuu culays ku keeno uuna mas'uuliyadda gabadhiisa korka ka saaro saaxiibkiisa ayaan kula talinayo inuu xiriirkiisa sheegto uuna qarin kaliyan laga doonayo qofkaas inuu xiriirka si fiican ula wadaago waajibaadkiisana uu ka soo baxo dhanka kale waxa arkaynaa Kan Ji Yoon Ho gabadhiisa la kulmayso Yoon Ho gabadhiisa ayaan u sheegayso Kan Ji Yoon inuu aabaheed cawda u socdo Shaneemo ayna israacayaan naag kale ay balansan yihiin inay isku raacaan
kanjiyon arrinka markay ogaata aad ay u xanaaqaysaa wayna ka maseeraysaa markan shaqada ay ku kulmayaan kadibna hadal adag ay ku leedahay maadaama ay u xanaaqsan tahay Yoon Ho markale aad ay ugu xumaanay arrinkan wuxuu sameeyay ma garanayo habeenka shaqada ay ku daahayaan labadooda kadibna Yoon Ho markan wuxuu go'aansanayaan oo runta u sheego jaceylkiisa u sheegto gabadhan laakiin to arrinka ka hadlin ayaa telefoon laga soo wacaya naagta diriskiisa ayaana soo wacayso kanjiyon markay maqasho naagtaas magaceeda aad ay ugu sii xanaaqaysaa kadibna kursigeeda ay dhan kale u jeesanaysaa taa oo Yoon Ho ka xirayso inuu waxba u sheego maadaama ay doonayeen in la hadasho Yoon Ho iska baxaya marka asigu murugaysan kanjiyon kadibna dirishada ay istaagaysaa waxayna soo xasuusanaysaa waqtigeeda fiicnaa isla qaateen waxayna go'aansanaysaa markaan si toos inay u tagto wajiga inay u sheegto wixii jiro isla markaasna dhankiisa ay u cararaysaa halka Yoon Ho intuu istaago oo soo xasuusto talada saaxiibkiis markaan go'aansanaysa laftiisa inuu u soo laabto wax walba ku qaadatana dareenkiisa u sheegto gabadhan isla markaas ayuu xafiiska u soo laabanaya halka iyadan ay ka tagto xafiiska kadibna kombiyuutarkeeda wuxuu ku arkayaa in Sergey gaaraysa filimka uu daawan rabay wuxuuna halkan ka xaqiiqsanaya iyadan sidoo kale ka fikiray sida daraadid ayuu mid kale u baadigoobaya ugu dambeyn kanjiyo teleefkiisa ayuu wacaysaa isla markiina dhicitaanka teleefkiisa ay aqoonsanaysaa halka ay isku arkayaan kadibna hab ay siinayaan waqti xadirkaasna u baahnayeen warramaan kadibna hawa isu shuminayaan maadaama mid kale dareenkiisa uu fahansan yahay waxayna ku heshiinayaan xiriirkeedu inuu qarsoodo u ahaado marka xiriirka ka dhaxay dartiisa Yoon Ho oo qalad galay ayaan arkaynaa kanjiyon u sheegaysa inuu qalad ka galay kadibna isagoo isku dhaxayo meesha ka cararaya halka kanjiyon ay fani ka dhiganaysa arrinta dhacayso maalintaas waxay la kulmayaan macaamiil la yiraahdo Mrs. Jane oo ah looyarad caan ah waxayna doonaysaa in loo raadiyo shaqaale laba looyar oo yar oo hadda soo baxayo si ay shaqadeeda culayska ay ku yareeyaan maadaama ay doonayso waqtigeeda shaqada qayb inay ka dhigto gurigeeda inay ka shaqayso kanjiyon arrintan waxay u aragtaa arrin adag maadaama laba abukaat la soo raadinayo maalintii xigta Mrs. Jane kamarigeeda ay tagayaan si ay u soo wareystaan waxayna arkayaan Mrs. Jane oo cunugeeda xafiiska keenayso waxaan halkan ka ogaanaynaa barbaran family inuu haysto ninkeeda ay kala tageen iyada asagoo ku eedeynaya shaqadeeda inay xoog saartay halka ay dayacday ilmahooda markaan uu doonayo cunug ka qaato waxayna u sheegaysaa markaan inay doonayeen shaqadeeda inay iska ka tagto in aad u jeceshahay halka familkeeda wiilkeeda inay doonayeen inuu laga qaato marka waa inay balance ka dhigtaa waxayna u raacsiinaysaa inay ogtahay inay hooyo fiican ay soo naqan laakiin hadda ay doonaysaa inay hooyo fiican noqoto markay ka soo laabtaan Yoon Ho wuxuu soo xasuusanayaa gabadhiisa hooyadeeda maadaama saaxiibtiisa hore shaqada iyo cunugkeeda ay dhibaato ku noqotay sida darteedna shaqadeeda ay dooratay kana tagto cunugteeda todobadan sano cunugtiisa kaligiis oo soo korinayna nin fiican ayuu ku noqday ninkan markaan Yoon Ho iyo kanjiyon xiriirkooda inay doonayeen inay qariyaan laakiin saaxiibteed Semi ayaa ogaanayso kanjiyon saaxiibteedna waxay kula talinaysaa inay doonayeen qof noocan inay la saaxiibto maadaama ninkan hore uu soo gursaday waxayna kula talinaysaa qof asaageeda inay raadsato maalintii xigta waxaa arkaynaa kanjiyon iyo Yoon Ho la kulmayaan Mrs. Jane waxayna qorsheynayaan shaqaale iyo raadinaysa inay u keenaan markaan kanjiyon oo doonayso qorshaheeda inuu soo bandhigto ayaa Mrs. Jane hadlaysa kadibna waxay leedahay in shaqada waa iska casilaya waqti xadirkan waxaana doonayaa cunugii inuu iska korsado oo waajibaadka hooyanimada ka soo baxo waxayna u sheegaysaa inay ogtahay ninkeeda inuu soo weerari doono dhaqaale dartiisa si uu cunugeeda ula wareego waxayna go'aansato markaan shaqada inay iska cashiso kadib markay ogaato inuu wiilkeeda uu doonayo abiis inuu la noolaado maxaa yeelay iyada badanaa guriga way ka maqneed oo abiis ay isbarteen si fiican isku barteen markaan waxay doonaysaa wax walba inay ugu taanasho wiilkeeda dhanka kale Mrs. Jane cunugeeda ayaa wuxuu umanayaa kanjiyon xafiiskeeda wuxuuna ka codsanayaa inay shaqaale fiican u raadiso cunugana hooyadiis iyo kanjiyon markay hadlayeen ay u maqlaayay wuxuuna u sheegayaa kanjiyon asiga jiritaankiisa inay dhibaato ku noqoto hooyadiisa sidaa darteedna oo abiis uu codsaday inuu la noolaado laakiin hooyadiis uu aad u jecel yahay sidaa darteed kanjiyon markaan waxay ku noqonaysaa inay shaqaale raadiso hawsha ayayna dib ugu noqonaysaa sidoo kale waxaan arkaynaa kanjiyon iyo Yoon Ho xiriirkooda inuu aad u kordhayo marka ay si fiican isku sii fahmayaan markaan kanjiyon casuumada waxa uu soo diray ninkii maalgashtaha kamaniga wuxuuna ka codsanayaa in uu doonayo inuu kambani ay u magacaawdo ayadoo ka soo horjeeda go'aanadeeda khaaska ah in lala soo farageliyo ayay waxay ka diidaysaa arrinkaas maadaama ay ogtahay markaan ay u yeesho mar walba inuu soo farageli doono arrimaheeda khaaska ah kamanigana sida uu la wareegi doono xafladii ayayna tegaysaa halka maalgashtaheedii uu samaynayo naagta ka soo horjeeday hawsha dham uu dhiibayo dadka hortoodana uu amaanayo iyada inay shaqaalahan u keentay markay dadka isweydiiyaan kanjiyon inay asiga u shaqaysay in kalena wuxuu sheegayaa booska laga rabay inay tagnin asigoo tusinayo inuu boos ka yahay iyadana bahdilayo waxyaabaha meesha ka dhacay inta u adkaysa weysa ayay waxay cudur daarinaysaa kadibna waxay leedahay waan baxayaa laakiin wuu celinaya asuu wuxuu leeyahay cabitaan loo shubo si qasab ayuu ku celinayaa kanjiyon markaan kama dambaysi ay ka taagan tahay ayadoo markaan furka tuura rabta ayaa Yoon Ho istaagayo jeermaankana kala hadlaya sida ayuuna banaanka ugu wadayaa kanjiyon arrinka aad ay ugu xumaanaysaa aad ayayna ugu xuntahay Yoon Ho hortiisa inay arrintan kula dhacdo Yoon Ho ayayna markaan ku qaylinaysaa waxayna u sheegaysaa inuuna mar kale qaadan go'aan la doonayo inay iyada qaadato laakiin Yoon Ho ayaa ku adkaysanaya mar kale inuu sameeyo doono arrinta camal haba u sameeyo inuu saaxiibkeed yahay amba xogayaheeda uu yahay si walba noqoto inuu difaaci doono hadalkaas kanjiyo qalbigeeda yar dajinayo maalinta xigta kanjiyo shaqay kamani kale website ka helaysa kamanigana 3 sano la soo dhaafay dhaqaal xumo ayaa ku dhaceeyay oo qarashaadka ay hore u heli jireen ayaa aad u hoos u dhacay maalgashadayaasha kamariga ayaa waxay casuumayaan kanjiyon iyo naagta ka soo horjeeday waxayna ka doonayaan CEO ku habboon shaqadan inay u soo raadiyaan kulanka markay ka soo tagaan naagta ayada dansi bilaabayso waxayna u sheegaysaa kanjiyon marka la guurdarayso doonto meeshaana shaqo laga doonayo aan laga doonayn xogeeye in saaxiib lala noqdo waxayna u sheegaysaa markii jeermaanka maadaama ay isku dhaceen kamanigeeda inuu baabi'i doono oo dhulka geli doono sidoo kale Yoon Ho way weeraraysaa laakiin uu isdifaacaya oo booskada wuxuu yahay tusinaya taa oo kanjiyo aad ugu helayso arrinka uu sameeyay Yoon Ho waxaan arkaynaa marka naagta ka soo horjeeday inay la luushayso maalgashadayaasha kuwa kamid ah liistina u geynayso halka Yoon Ho iyo kanjiyon xiriirkooda uu sii zaa'idayo Yoon Ho marka
markaa wuxuu ogaanayaa ninka badbaadiyay gabadhiisa magaceeda. Waxaan arkaynaa markaa yaraantiisa Yunho oo gurigiisa jiifo ayaa dab qabsanaya dhismaha. Markii uu isku dayo inuu banaanka u soo baxo albaabka ayaa wax ku tiirsan oo celinayo. Kadibna asigoo ooyinaya ayaa caawinaad warsanaya. Kadibna uu soo xaya kuleelka dartiisa. Asigoo soo xiraba ayaa Kan Ji-yoon aabaheed imaanayo. Kadibna uu badbaadinaya. Isla markaa cunuga u dhiibay qolada dabdamiskana Kan Ji-yoon aabaheed meesha ayaa ku qarxayso. Halkaas ayuu ku dhimanayaa. Dadka dham Kan Ji-yoon aabaheed waxay dhihi jireen geesi waaye. Laakiin Kan Ji-yoon aad ayay u nacbeed arrintaas. Maxaa yeelay aabaheed ay jecleed ayaa ka tagay oo iyadoo aad u yar ay agoon sida ku naqatay. Yunho arkaa markuu ogaado aad ayuu u xumaanayaa. Mana garanayo sidoo uu wajaho Kan Ji-yoon waqti xaadirkan. Isla markaas ayaa si laf falan ay u soo wacaysaa Kan Ji-yoon ayadoo la baashaalayso waqti la qaadanayso gabadhiisa. Kadibna uu imaanaya iska baashaalayaan fahmil camal. Laakiin guriga markay u soo naqanayaan Kan Ji-yoon waxay dareemaysaa Yunho inay wax ka qaldan yihiin. Maalintii xigtay Yunho shaqada ayuu ku maqnaanaya. Taleefan day ka wacdana kama qabanaya xataa. Maxaa yeelay wuxuu aadayaa Kan Ji-yoon aabaheed qabrigiisa si uu u soo booqdo una soo mahad celiyo. Wuxuuna ballan ugu soo qaadayaa inuu si walba noqoto gabadhiisa uu difaaci doono. Markuu ka soo laabtana Kan Ji-yoon ayuu wacaya. Kadibna guriga ay isku raacayaan. Markaan waxaan arkaa ninka Yunho inuu aad u xun yahay. kalinimada ay ku soo kortay Kan Ji-yoon isla markaasna gacanta ayuu qabanayaa. Wuxuuna u sheegayaa runta waxay tahay iyo xiriirka ay ogeyn iyada oo ka dhaxeeyo labadooda. Wuxuuna u sheegayaa aabaheed markuu dhimanayo qofku badbaadinaya inuu asiga yahay. Isla markay maqashana gacantiisa ay iska sii deynaysaa. Gadaal ayayna ugu dagaysaa. Kan Ji-yoon markay arrintan maqas ay iska ooynaysaa. Wax xasuus murugo badan ayay galaysaa. Halka Yunho wuxuu sameeyay u garan laayahay. Subaxdii xigta markay ka soo kacday waxay arkaysaa Kan Ji-yoon inuu isaga tagay guriga. Warqadna uu reebay ay ku qoran tahay inuu sigi doono ilaa halkeeda caadi uu ka noqdo. Dhanka kale naagtii Kan Ji-yoon ka soo horjeeday aad ay ugu masaasan tahay Kan Ji-yoon. Cadowtinimo zaa'idna way u qaaday. Markaan waxay degaysaa qorshe aad u xun. Waxayna doonaysaa markaan Kan Ji-yoon inay siraq u dhigto. Ayna u dirtay nin shaqaale oo Kan Ji-yoon hore u shaqay jiray si uu u soo basaaso. Sidoo kale qorshe kale qarsoon way wadataa oo Kan Ji-yoon ay siraq u dhigayso. Ninkii ay soo dirtay oo macmiil iska dhigay ayaa Kan Ji-yoon xafiiskeeda u imaanaya markaan. uu sheekeynaa inuu yahay Mr. Bagnin liiraho. Wuxuuna ka codsanayaa inay u soo raadiso aqoon-yahano dhanka daawada ku qaxil dheereeyo oo company pharmacy uu leeyahay research u sameeyo. Kan Ji-yoon way ka aqbalaysaa iyadoon ka warqabin inay siraq ku dhacayso. Markaan saaxiibteed Sami ayaa dareemaysa inay xaaladdeeda caadi ah Kan Ji-yoon waxayna weydiinaysaa inay isku dhaceen Yunho. Kan Ji-yoon markaa waxay casuumaysaa saaxiibteeda ay cabitaan ku casuumaysaa arrinteeda dham ayayna u sheegaysaa. Waxayna u sheekeynaysaa aabaheed markuu dhintay kadib waxay dareentay in nolosheeda sida naqata dhammaan. Waxayna weydiinaysaa sida uu soo karana iyada iyo Yunho maadaama uu soo xasuusinayo aabaheed arrimihiisa. Halka saaxiibteed ay ugu jawaabayso ka soo qaad Yunho inuu yahay hadiyad aabaha kaaga tagay. Laakiin Kan Ji-yoon markaan war kaliya wax mu tarayo. Habeenkii waxaa arkaynaa iyadoo insomnia ku soo kacday. Hurdadii ka tagtay. Xasuus ayayna galaysaa aabaheed wejigiisa iyo codkiisa. dhanka kale Yunho gabadhiisa yirista ayaa waxa laga casuumayaa xaflad dhalasho. Xafladaha noocan ah gabdhaha waxay doonayaan inay noqdaan gabadha ugu quruxda badan meesha. Yunho ma garanayo sida uu gabadhan ugu libiso uguna dhigo gabadha ugu fiican. Wayna ku xanaaqaysaa gabadhiisa iyadoo aad ugu xun maadaama aabaheed uu fahmayn ay dukaanka buugaagta soo aadaysaa. Kadibna waxay kula kulmaysaa Kan Ji-yoon. Kan Ji-yoon markay ogaato gabadha waxay doonayso isla markaas suuqa ay geynaysaa dhar aynu soo iibinaysaa si aan caadi ahayn ayuu ugu soo labisaa. Kadibna waxay u soo dhiibaysaa hadiyad ay u geynayso gabadha dhalashada dhiganayso. Sidaas ayayna ku noqonaysaa gabadha xigta xafladda markay ka soo laabtaan gabadha yirista waxay ka shalaynaysaa aabaheed erayada ay ku dhahday aabaheeda. Isla markaas Kan Ji-yoon taleefkeeda ay ka codsanaysaa si aabaheed u raali geliso erayada ay ku dhahday. Kan Ji-yoon markay maqato inanta yirista waxay aabaheed ku dhahayso qalbigeeda ay aad u jeclay. Kadibna aabaheed ay aadaysaa qabrigiisa ayna muddo sanadaha naciilka aabaheed u hayay dhimashadiisa ma ahayn nacayb ay nacabtahay ay jecel ay jecesha ay ahayd yaraanteeda maadaama uu ka ballan qaaday inuu garabkeeda istaagi doono ayaa markii uu geeriyooday waxay niyeysatay inuu garabkeeda ka tagay. Markay iska xusoo xirtay problemka aabaheed dhankeeda uu furnaay maalintii xigta Kan Ji-yoon Yunho ay u sheegaysaa inay aad ugu faraxsan tahay aabaheed maadaama uu asiga nafsidiisa u horay qof aad u wanaagsan oo adiga kalaana uu badbaadiyay aabaheed isku badbaadinay uu dhintay. Kadibna Yunho gacantiisa ay intay qabato ay xafiiska la galaysaa iyadoo shaqaalaha dhammaan u cadeynaysa inuu xiriir ka dhaxeeyo. Xiriirka ay qarinayna banaanka ay soo dhigaysaa. Dhowr maalin kadib Mr. Bagnin ayaa soo laabanayo asigoo Kan Ji-yoon ka codsanaya dhammaan shaqaalaha kamanigiisa inay iyada u soo xusho. wuxuuna u ballan qaadanayaa inuu sheer ka siin doono kamanigiisa. Chiefka oo arrintan ka shaqeeya ayaa Kan Ji-yoon u tagayo. Kadibna arrinta ayuu sheegaya inuu ka shaqaysan yahay ninka nin hore u shaqay jirin kamanigan inuu ku soo laabtay warbixin inuu xadayo. Yunho baaritaan dheer markuu sameeyay kadib markuu soo hubsaday wuxuu u imaanayaa Kan Ji-yoon arrintan uu sheegaya. Kan Ji-yoon markaa waxay kula talinaysaa jiifka inuu iska dhigo qof aan waxba ogeyn. Kadibna ninkaas uu la kulmo jiifkana sida lagu amray ayuu sameeyaa oo ninka ayuu la kulmayaa. Kadibna boorsadiisa ayuu meesha u tagayaa asigoo ku marmarsiinayo inuu masquul galayo. ninkii sardoonka isla markaas wuxuu galayaa inuu baar boorsadii wuxuuna halka ka helayaa liis ay diyaarisay Kan Ji-yoon. laakiin wuxuusan ogeyn liiskan inay tahay mid ay ugu tala gashay oo liis feyga uu yahay. markaa Kan Ji-yoon wax walba sidii doonaysa ay u dhacayaan. naagtii ka soo horjeedeen listigii ay laga xaday ayay heshay isla markaasna kamaniga ayay ku wareejinaysaa. sharaxaadda markay dhammaysatay kadib Kan Ji-yoon ayaa soo istaagaysa goobta. kadibna liiskeedii saxda ayay meesha soo dhiganaysaa taasoo naagta ka soo horjeeda aad ugu yaabayso sida cajiibka ay Kan Ji-yoon u khiyaantay. liistigii Kan Ji-yoon ay soo bandhigtay waa mid kala rabay
ayadoo isla goobtaas ka cadeynaysa kambaniga sababaha uu sanadaha dib u dhacay waxayna u sheegaysaa in programyada injineerada programinay sidii la rabay in loo dhaqmeyn sidoo kale injineerada cusub si xum in loo dhaqmay marka maamulka sare ee kambaniga ay aad u xumaayeen sida darteedna hoos dhac kambaniga u keentay director Kanjiyo arinteeda aad ay ugu helaya iyo soo jeedinteedaba sidaas ayaan ugu guuleysanaysaa naagta ka soo jeed Kanjiyo sida ay ku noqonaysaa kambanigaas qofka u xil saaran kontraad weyn ayayna sida ku guulinaysaa waqti dheer soconayso Kanjiyo iyo tiimkeeda oo dabaaldegayo ayaa waxay arkayaan news soo dhacay newskaasna wuxuu sheegayaa Mr. Back inuu lacag balaayiin oo kambaniga hoos mariyay sidaana dambiilo ku noqday lacagaha uu isdaba mariyay darteed kambaniga sida uu dhulku ku galay maadaama Kanjiyo ay shaqaaleysay kambaniga shaqaalihiisa badankiis wariyaasha dhamaayada ay warar ku soo qaadayaan laakiin nasiib wanaag Yunho ayaa waqtiga loo baahnaa imaanaya kadibna ka soo gaarayo Kanjiyo halka ka wadaayo waxaan halkan ka ogaanay ninka Mr. Back la hayay inay soo dirtay naagta ka soo horjeeday Kanjiyo siraqdan iyada ay u dhigtay oo qorshaheedu sidaan ahaaba maadaama Kanjiyo kambanigeeda oo ah mid aad loo xushmay ayay waxay ugu faa'iideysteen inay kambaniga kale ku qayaanaan lacagna ay sida ku dhacaan Kanjiyo oo markaan booliis kaliya ma waraysanayaan hatta waxa weerar ku soo qaadayo qoladii deenka siisay oo kambaniga deemanka ku lahaayeen laakiin nasiib wanaag si walba ahaataba Yunho ayaa mar walba garabkeeda istaagsan Kanjiyo marka waxay ku qasbanaanaysaa Yunho gurigiisa inay u soo wareegsato Yunho gabadhiis aad ay ugu faraxsantahay Kanjiyo inay gurigooda timaado eeda ayana ka dhiganaysaa waxaan halkan ka arkaynaa wada noloshahooda inay aad ugu faraxsan yihiin oo ay noqdeen happy family maadaama kambaniga baarid lagu wado shaqaalihii markan book store-ka ay isugu imaanayaan dukaankii buugaagta halkaas ayana baaritaan ka bilaabayaan waxayna doonayaan markaan runta inay ogaadaan iyo sidii khiyaanada ugu dhaxdheen isla markaas ayaa article la soo qoraya laguna eedeynayo Kanjiyo inay ka dambeysay dhimashada shaqaalaha mid kamid ah Kanjiyo boostiga markay aragto isla markaas naagta ay aadaysaa wayna ogtahay inay cid kale ka dambeeyay ka dambayso maadaama guligeed ay ka baseeri jirtay horkarnimadeeda Kanjiyo ayaa naagtan ku eedeynayso inay dishay ninkaas ayadoo aad ugu xun horumarkeeda ay gaartay khiyaano heerkan la eegnin inay soo degto inay maseer iyo idinka qabtay ay ku sababtay markay ka soo tagto Kanjiyo kambanigeeda ay ku soo laabanaysaa aad ayay ugu xumaanaysaa kambanigeeda oo ayna joogan markay aragto waxayna soo xasuusanaysaa naagta ka soo horjeeda waxyaabaha ay ku hadlaysay ayadoo isku dhaxayacsan oo isdhayso cid ku garabkaada istaagaysa ma jirto ay waxay soo aadaysaa dukaankii buugaagta markay timaadana waxay arkaysaa dhammaan shaqaalihii oo goobta ka ugu soo horreeyay aad ayay la yaabaysaa maadaama ay ku aragto meeshan ayadoo u malaysay inay gurigooda ka shaqaynayaan waxayna halkan ka xaqiiqsanaysaa dad garabkeeda istaagi karo inay joogaan meeshan waxayna halkan ka ogaanaysaa inay baaritaan wadeen si kambaniga magaciisa la wasaqeeyo dib u dhaqaan runtan cadeeyaan Kanjiyo arrinkan aad ay ugu farxaysaa kadibna jiifka ay u sheegay baaritaankiisa wuxuu ka soo saaray wuxuu u sheegay Mr. Back inuu xiriir lahaa kambaniga ka soo horjeedo oo naagta la xifaaltanto ee madax ka tahay waxaan dhacan dhammaan iyada ay ka dambeysay Kanjiyo shaqo ay hore ugu qabtay laakiin si tartiib ay u dhageysanaysaa warbixinta laga siinayo isla markaas Yunho gabadhiis ayaa imaanayso isla markaasna waxay ku leedahay Kanjiyo عوضنا ما الله جيفانيسا شغالين يسقلدن ay u fahmayaan waxayna u malaynayaan Kanjiyo iyo Yunho markaan inay toos guri isku dageen si familka cusub u qasinayo qof walba way qabtay ay ka cararaysaa Kanjiyo iyo Yunho cunugta ay guriga wadayaan maalinta xigtay Kanjiyo waxay imaanaysaa kambanigi waxayna u imaanaysaa maalgastihii oo meesha joogo kadibna wuxuu u sheegayaa kambanigi inuu hoos u dhacay macaamiladina ay aamin waqti xadirkan ayada darteed sida daraadeed inay shaqada iska cashisho ayuu ku soo jeedinayaa halka Kanjiyo arrinka ay ka soo horjeesanayso oo sheegayso kambanigan inay u soo dhimatay alafna ay ka soo bilowday si dhidhelna inay ugu tageen malcad Kanjiyo marka Yunho ay waxay isku raacayaan xeebta si inaydeed u soo degsato halkaas ayuu hadiyad katiinada ku siinaya asigoo u rajeynaya inay farxad ku noolaato Kanjiyo waxay u mahadcelinaysaa Yunho inuu nolosheeda ku soo biiray waxay kale u sheegaysaa inay nolosheeda farxad inuu ku jirin waqtiga asiga ka maqnaa shaqana isku mashquul jirtay nolosheeda marka ku soo biirtay ay macna yaratay ay leedahay kadibna gacmaha ay isqabsanayaan jaceelkiisa inuu sheeganaya nolosheeda inta ka dhiman garabkaada ayaan ahaanaya ay ku leeyahay maalintii xigtay waxaan arkaynaa Kanjiyo oo la kulmayso shaqaalihii dhamaan Kanjiyo markaan maadaama ay ka fikirayso kambaniga sumcadiisa iyo shaqaalaha mustaqbalkooda waxay go'aansatay inay shaqada iska casisho wayna u sheegaysaa waxayna ogolaanaysaa naagtii la xifaaltami jirtay inay kambaniga iyada la wareegto si kambaniga magaciisa u sii jiro shaqaalihii amkaag ayay ka soo harayo wayna yaabayaan wiilka Jeermaanka maalgashtaa ahaa oo shaqaalaha Kanjiyo kamid ahaa ayaa markaa abiis jilbaha dhulka u dhiganaya kana codsanayo inuu Kanjiyo iska dhaafo badalkeedna asiga uu soo laaban doono wuxuu doono u shamay doono Kanjiyo dhankeedna uu ka soo tagi doono ayuu ballan ku qaadaya dhanka kale waxa arkaynaa Kanjiyo in naagta ka soo horjeeday oo kala saxiixanayaan kambaniga inay ku kala wareegaan Kanjiyo kadib markay shaqadeeda lumisay markaan waxay bilaabaysaa Yunho inay iska noolaato iska baashaalaan nolol iska baashaalan ay ku noolaadaan waxyaabihii dhaaf waqtiyadii shaqaynayeen ay waqtigan sameeyaan halka naagta ka soo horjeeday dhibaato weyn ay dhaxda ka galayso dhammaan shaqaalihii kambaniga Kanjiyo way iscasilayaan oo kambaniga kaligeed ayaa ku soo harayso sidoo kale dambiga waxa ku soo baxayo inay khiyaano sameysay sida daraadeedna booliiska ayaa qabanaya iyada gacanta ayaan lagu dhigayaa dambiyada geysatay Kanjiyo marka waxay asaasaysaa kambanigeeda cusub magacana kambaniga waxa u bixinayo Yunho gabadhiisa kambani wiil la yiraahdo ayay baxsanayaan dhammaan shaqaaleydi horena u imaanayaan halkaas ayana waxay ka bilaabayaan kambanigood cusub ugu dambeyn Kanjiyo saaxiibteed Semi waxay noqonaysaa hooyo halka Kanjiyo iyo Yunho isguursanayaan nolol degan oo qurux badan halka ka galay sidaas ayana noogu dhamaanaysaa dramadeena Life is Called Lahay haddaba halka haddana la soo gaartay aad ayaa ugu mahadsan tahay muuqaalka laagtii shirtii dhaqaabta sidoo kale haddana ugu cusubtaa subscribe noo saar kamalaalkana furo ilaa aan ka kulmayno drama ka xiiso badan waa inoo mar kale assalaama